hogaamiyaha maamulka waqooyi bari Cabdiqaadir oo Cali Axmed Firdhiye ayaa warar hoos sheegay inuu ku sii jeedo magaalada Nairobi ee dalka Kenya halkaas waxa ku sugan hogaamiyaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro haddaba maxaa qarsoon maxaa la filan karaa safarka xogtan ku saabsan iyo qorshaha ka dambeeya muuqaalkan ku soo koobaya madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro ku dhawaaqay inuu diyaar u yahay wada hadal toos ah lala galo dawladda dhexe Soomaaliya laakiin waxa uu ku xiray laba shuruudood oo waaweyn haddaba maxay shuruudahan warbixin ku saabsan ayaan eegi doonaa kulankii beesha caalamka iyo saddex qodob oo la hordhigay madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro isbahaysiga Turkiga Sacuudiga iyo Pakistan oo si toos ah u wajahaya qoonsiga Soomaaliland Israa'iil iyadoo dhawaan isbahaysigan lagu wada inay ku biiraan saddex dalo waaweyn waa kuwa dalalkaas maxaa laga qoray haddaba warbixin kale oo ku saabsan ayaan eegi doonaa maxaa kala socota neetada cusub ee islaamka iyadoo durbaba qalqal weyn ay muujiyeen dalalka Mareykanka Israa'iil iyo dalalka reer Yurub taasoo muujinaysa inay ka soo horjeedaan isbahaysigan cusub sida lagu baahiyay warbaahinta reer galbeedka wasiirka arrimaha dibadda dalka Iran Abbas Araghchina si lama filaan ah ayuu uga falceliyay heshiiska difaaca wadajirka ah oo lagu gaaray magaalada Makka dalka Sacuudi Carabiya isagoo sheegay in Iran ay ku filantaa dhammaan cadawgeeda taasoo muujinaysa in xukuumadda Tehran ay ka soo horjeedo isbahaysiga Ankara iyo sidoo kale Islamabad iyo Sacuudi qodobadaas ayaan ku soo koobaya muuqaalkan kulanti wanaagsan galab wanaagsan qiyaaray وصبدي وسيدة بشا أغوصي سيدات لبدا كن لحي لباتن وحنا محمد ديني تبيها إيا صوصارها وركا سلطان كتيفي كسو دوادا وركاس أوفا فاصل إنكو باللون وقاميها مامولك وقوي بري عبدالقادر أو علي أحمد فردي أيا ورهو صحاقيتين إنو كسي جدا مقالة نيروبي إيا دالكا كي يدو xogtu sheegayso inuu halkaas yani uga qayb gali doono shirar gooni-gooniya oo lagu sheegay in lagu marti qaado shirarkaas iyadoo lagu wado inuu la kulmo xubno ka tirsan beesha caalamka xubnaha taageera arrimaha Soomaaliya sidoo kale Firdhiye ayaa lagu wadaa inuu kulamo kula yeesho dhinacyada waqooyi bari ka soo jeeda ku sugan Nairobi iyadoo sidoo kale xogtu sheegayso inuu la kulmayo diblomaasiyiin iyo sidoo kale dhinacyo qarsoodiye ma cadda diblomaasiyiintaasi ujeedkood safarka Cabdiraxmaan Cirro waa safarka ee Cabdiqaadir oo Cali Axmed Firdhiye ayaa sidoo kale lagu dabaqay socdaalka madaxweynaha Soomaaliland uu ku joogo magaalada Nairobi ee dalka Kenya dhowrkii maalmood la soo dhaafay iyadoo aan ilaa hadda la xaqiijin in labadan safar ay isqusayaan iyo in kale laakiin xogtu waxay xaqiijinaysaa helayno in Firdhiye halkaas uga qayb galayo kulamo gaargaar oo la yeelanayo danayaasha arrimaha Soomaaliya deeq bixiyaasha muhiimka ah iyo diblomaasiyiin ka socda dalalka qaar ma cadda laakiin ujeedka rasmiga miyay haddaba kulmayaan Cabdiraxmaan Cirro iyo sidoo kale Firdhiye inkastoo aysan jirin cid si rasmi u xaqiijisay faahfaahin ka bixisay haddana waxay ku wada sugan yihiin sida la sheegay abay ku wada sugnaan doonaan magaalada Nairobi iyadoo aan la ogeyn inuu jiro cilaaqaad arrimahaas ku saabsan iyo in kale laakiin madaxweynaha Soomaaliland ayaa dhowrkii maalmood la soo dhaafay kulamo qarsoodiya iyo kuwa toosaba ka waday gudaha dalka Kenya iyadoo lagu sheegay kulamadaasi in diiradda lagu saarayo marxaladda Soomaaliland iyo sidoo kale duruufaha miiska saaran ee u baahan qiimeyn dhab qodobkaasi wixii ka soo baxay dib aan ka faahfaahin doonaa wararka kale aynu eegno madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro ayaa ku dhawaaqay inuu diyaar u yahay wada hadal in la yeesho dawladda dhexe Soomaaliya isagoo ku sheegay in wada hadalkaasi ay ku xireen shuruudo waaweyn furintoodana laga rabo dhinaca fila Soomaaliya kulankii ka dhacay magaalada Nairobi ee dalka Kenya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi ayaa sheegay in markaasi dawladda Soomaaliya ay tahay marka hore inay fuliso dhammaan heshiisyadii hore oo ay la gaartay Soomaaliland ka hor intaan markaasi la bilaabin wareeg cusub oo wada hadal ah taasoo ku sheegay inay tahay shuruudda koobaad fulinta dhammaan heshiisyadii hore loo galay taasoo ku tilmaamay inaysan Soomaaliland aqbali karin iyadoo la furin heshiisyadaasi in la soo dhaweeyo madaxweyne Cirro oo khudbad ka jeediyay safiiradana la hadlay ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in Soomaaliland ay hore u muujisay inay diyaar u tahay wada hadal balse waxa uu sheegay in heshiisyada labada dhinac ay gaareen
aan la fulin taasoo ay qayb ka tahay arrinta hawada iyo sidoo kale tallaabooyinkii kale la qaaday dhammaan kulamadii dhacay dhawaan waxaan si xushmad leh uga codsanayaa saaxiibadeena caalamku inaysan ku ekaan dhiirigelinta wada hadallada balse ay sidoo kale Soomaaliya ku dhiirigeliyaan inay fuliso heshiisyadii hore la gaaray ayuu yiri Cabdiraxmaan Ciro madaxweynaha Soomaaliland waxa uu sheegay in maamulka hawada rayidka uu yahay tusaale kamida heshiisyadii hore ee labada dhinac ay wada galeen kaasoo ku sheegay inaysan dawladda dhexe Soomaaliya u fulin qaabkii loogu heshiiyay guud ahaanba Ciro ayaa sidoo kale ku eedeeyay dawladda dhexe Soomaaliya inay faragelin ku hayso arrimaha Soomaaliland isagoo sheegay in dawladda federaalku ay markaasi diiradda saartay burburinta Soomaaliland halkii ay wax uga qaban lahayd caqabadaha siyaasadda iyo bini'aadanimada iyo amniga ka jira gudaha Soomaaliya Somaliland ayaa sanadkii 1991 uu ku sheegay inay ka goday Soomaaliya inteeda kale intaasna si gaar ah ay isku maamuleysay cidna aysan uga heebaysan markaasi go'aamadeeda masiiriga isagoo ku sheegay in dhammaan tallaabooyinkaas ay guul ku soo dhamaadeen siday baahisay warbaahinta madaxtooyada ee Hargeysa kulankaas wakiilada caalamiga ah iyo sidoo kale dhinacyadii kulamada uga qayb galay ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu adkeeyay in la doonayo iskaashi iyo maalgashi ku dhisan dana wadaag wax wada qaybsi ama wax wada qabsi taasoo lagu muujinayo fariimaha wakiilada beesha caalamka iyo hay'adaha caalamiga ee taageera arrimaha Soomaaliya ayuu u sheegay in nabadda iyo xasilloonida ay yihiin mudnaanta koowaad ee xukuumaddiisa iyadoo sidoo kale aba markaasi isagoo tilmaamay in ka badan 6,000 oo ciidan beeleed ee iyaga markaasi qalabkoodii si nabad loo qarameeyay tallaabadaas oo ku sheegay in lagu furayo wadooyin muhiim madaxweynuhu waxa uu xusay in shaqooyinkaasi ka dhacay gobolada galbeedka waa shaqooyinkii ka dhacay gobolada galbeedka markaasi lagu wajahayo wada hadal dib u heshiisiin iyo hanaan nabadeed iyo wada xaajood ay markaasi xukuumadda hormuud u tahay sidoo kale beesha caalamka ayuu u caday in Soomaaliland ay ka go'an tahay inay arrinta laascaanood lagu xalliyo wada hadal is afgarad iyo hanaan nabadeed sida ku sheegay warbixintiisa Cabdiraxmaan Ciro ayaa xusay in aqoonsiga ay Israa'iil markaasi 26 bishii Diseembar ee sanadkii tagay ku aqoonsatay Soomaaliland oo ahaa dhacdo taariikhiya oo lagu yiri qoraal ka soo baxay markaasi madaxtooyada Hargeysa Ciro ayaa sidoo kale sheegay in aqoonsiga Israa'iil aanu ahayn dhamaadka geedi socodka aqoonsiga raadinta Soomaaliland balse uu qayb ka yahay xaqiijinta himilada shacabka muddada dheer ku taamayay inay helaan aqoonsi caalami dhinaca Ciro waxa uu sidoo kale tilmaamay muhiimadda sugnaanshiyaha iyo arrimaha kale muhiimka ah laakiin dhinaca beesha caalamka xogtu waxay sheegaysaa in loo soo bandhigay ajendayaal waaweyn oo ay qayb ka tahay in Cabdiraxmaan Ciro uu kaalin ku yeesho arrimaha wada hadallada iyo sidoo kale dib u heshiisiinta iyadoo la eegayo marxaladihii laga gaaray ama guulihii xoogganaa ee laga gaaray wada hadalladii dhacay taasoo lagu warbixinta lagu sheegay sida laga soo xigtay diblomaasiyiinta beesha caalamka qodobkaasi wixii ka soo baxa dibaan ka faahfaahin doona waan ku soo gudbin doona wararkeena kale aynu eegno dhinaca kale aynu eegno isbahaysiga Turkiga Pakistan iyo sidoo kale Sacuudiga ay wada gaareen ayaa si toos ah u saameynaya aqoonsiga Soomaaliland ee Israa'iil sida lagu xuso warbixin cusub iyadoo dhawaan isbahaysigan ay ku biiri doonaan 3 dal oo kale oo hor leh kuwaas oo la sheegay in isbahaysigan uu yahay isbahaysiga Islaamka NATO aba la mid ah NATO iyadoo durbaba qalqal weyn ay muujinayaan dalalka reer galbeedka warbixinada sida warbaahintoda ay qoreenba looga muujiyo culays weyn in arrintan ay ku tahay ee guud ahaan dalalka markaasi awoodda hore u heesay isbahaysiyada waaweyn ee hore u jiray heshiiska lagu saxiixay magaalada Makka ee dalka Sacuudi Carabiya oo dhaxmaray wadaha markaasi Islaamka ugu waaweyn sida ninka lagu magacaabo Erdogan madaxweynaha Turkiga Sharif ra'iisul wasaaraha Pakistan iyo dhaxal sugaha Sacuudi Carabiya Mohammed bin Salman kulankaas ayaa noqday dhacdo taariikhi oo si weyn loo falaqeynayo iyadoo ay soo dhaweeyeen dalal waaweyn waxaana xogtu sheegaysaa isbahaysigan inuu si toos ah diiradda u saarayo arrimaha badda cas in qaab militari qaab diblomaasiyad qaab sirdoon lagu wajaho sidoo kale arrimaha baabul mandab iyo sidoo kale aaga gacanka cadmeed taasoo dalalkan la sheegay inay si xoogan saameyn ugu leeyihiin
dowladda Soomaaliya ayaa kamid ah dalalka sida degdega u soo dhaweeyay heshiiskan kuna tilmaamay dhacdo taariikhiya oo ka turjumaysa rabitaanka dhammaan jiilasha soo koray isbahaysigan cusub ee islaamka ayaa lagu tilmaamaa kii ugu ballaarnaa oo lagu xoojinayo natiijooyinka heshiiska la wada gaaray aba la wada galay taasoo muujinaysa in isbahaysigan uu ka guda weyn yahay heerka laga filay jimcada heshiiskan la saxiixay ee lagu saxiixay markaasi magaalada Makka wali ma ahan markaasi heshiis dhaba oo sida la sheegay dalal ka baxsanay saxiixeen laakiin saddexdan wadan ayaa si dhaba u galay waxaana uu xambaarsan yahay fariin siyaasadeed iyo mid amni oo si weyn uga weyn magaca heshiiskan sida lagu qoray warbixinada falaqaynta saddexdan wadan oo kamid ah quudaha ugu waaweyn dunida muslimiinta ayaa dhisay hanaan cusub iskaashi amni xilli kalsoonida lagu qaba nidaamkii hore ee muddada dheer gobolkan ka jiray oo si wiiqmaya gudaha kuna koobmay dana siyaasadeed interasiya sidoo kale ee isbedel dhab Sacuudigu wuxuu heshiiskan markaas la imaanaya awood dhaqaale iyo miisaan siyaasadeed Turkiguna wuxuu leeyahay ciidanka labadii ugu weyn NATO warshadaha difaaca ugu waaweyn ee xawliga markaas ku koraya halka Pakistan ay leedahay awood ciidan oo aad u weyn iyo hubka nuclearka kaliya oo ay leeyihiin markaas dalalka muslimiinta aba dal islaam su'aasha ugu weyn ma ahan in saddexdan wadan ay doonayaan in Mareykanka markaas ka saaraan gobolka aba bedelaan kaalintiisa waxaase ugu muhiimsan waa in Riyadh Ankara iyo Islamabad ay u muuqanayaan kuwa rumaysan in Washington oo kale aysan mardaba sii karin damaanad qaad amni oo ay u baahan yihiin iyagu boqortooyadu waxay muddo 10 sano ah waxay ku tiirsaneed dadaalada amni ee Mareykanka waxaanay sidoo kale soo iibsatay qaar kamid hubka ugu casrisan dunida gantaalada iyo sidoo kale diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iran iyo sidoo kale kooxaha ay taageerto ayaa dhowr jeer muujiyay nuglaanta amni ee Saudi Arabia iyo guud ahaan dalalka qaliishka taasoo muujinaysa in la isku halay karin arinta Trump dagaalka hadda ka socda gobolkan ayaana looga walaacsan yahay inuu sii xoojiyo weeraro Iran sidoo kale ay la beegsato kaabayaasha muhiimka ee dalalka qaliishka halka xiisada ka jirta marinbiyoodka Hormuz ay qatar gelisay isku socodka maraakiibta dhaqaalaha Sacuudiga oo wali si weyn ugu tiirsan dhanka shidaalka Iran ayaa sidoo kale bartilmaameysata nidaamka raadeerada iyo sidoo kale isgaarsiinta lafdhabarka difaaca cirka Mareykanka oo hogaaminaya qaliijku taasoo sii muujisay in xitaa nidaamka difaaca casrigan uu leeyahay markaasi nuglaan kala duwan marka loo eego warbixinada hadda falaqayaha Sacuudiga ee lagu magacaabo Ali Shihabi ayaa wargeeska lagu magacaabo Financial Times waxa uu sheegay in isbahaysigan uu ka turjumayo faham si xoogaysanaya oo ah in awoodda Mareykanka markaasi uu ka hortaga cadawga uu si weyn u daciifiyay taasina ay ku qasabtay dalalka gobolka inay iyagu qaataan mas'uuliyad dheeraad taasi macnaheedu ma ahan in Sacuudigu uu ka tagayo Mareykan Riyadh wali waxay si weyn ugu tiirsan tahay hubka sirdoonka kaabayaasha militariga ee Mareykanka Turkiguna waxa wali xubin muhiim ka yahay ururka NATO halka Pakistan ay iyaduna markaasi xiriir ciidan oo muhiim ah ay la leedahay Washington Mareykan sidaas daraadid heshiiska Makka wuxuu hadda u eg yahay caymis istiraatiiji ah oo dheeraad ah halka uu ka ahaa kala tag siyaasadeed oo Mareykan markaasi lagu sameeyay falaqayaashu waxay ku tilmaameen arintaasi mid suurtagal ka dhigaysa isbedel istiraatiiji Turkiguna wuxuu sidoo kale la jaan qaadaya aragtida Ankara ee xalalka gobolka in lagu raadiyo gudaha gobolka taasoo Turkiga siinaysa fursad uu ku kordhiyo saameyntiisa isagoo aan markaasi wax u dhimeyn xubinimada NATO kubiirista Turkigu waxay sidoo kale bedelaysaa qaabka xiriirka caalamiga ee amniga oo horay markaas inta badan uga dhaxeeyay Sacuudiga iyo Pakistan dhinaca Iran maxaa laga filan karaa dabcan xuutiyiinta Iran ay taageertay saameyn heshiiskan oo ku yeelan karo wasiirka arrimaha dibadda dalka Iran Abbas Araghchi ninka lagu magacaabo ayaa si lama filaan uga falceliyay heshiiskan isagoo ku tilmaamay in Iran ay ku filan tahay dhammaan inay iska difaacdo dhinacyada ay u aragto inay caqabad ku yihiin Abbas Araghchi ayaa ka falceliyay heshiiska difaac ee wadajirka ah oo ay wada gaareen dalalkaas waxaana uu sheegay in Iran kaligeed ay awooday inay iska caabinta ka hortaga ciidanka lagu bixiyo dhaqaalaha ugu badan caalamka
isku tagga muslimiinta iyo sidoo kale dooda uu dhalinayo awoodda ballaaran ayuu ku sheegay inay si kastaba iska difaaci doonaan cadow kastoo soo weerar dalka markaasi Iiraan wararkaas ayaa qaybtan ugu waaweyn qiyaaray wixii soo korra waanigi doona soo dhawaada